الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتين أصحابتا أما بعد في السوشيال ميديا وحايدين هايا ودنك إن أسجلوا مرحلة دور نعانتي آد إن لو فكر وباهن لو جيفتو لو نستو إسبرموتو لو عبو جيتو ستيس لفديستو كبعد اللي أقاد حقائق ذا ودنك كجرتو مادام أن كميت أهاي مجلسي أصحابتا أما مجلسي شعبك الصوماليات waxaan rabaa inaan idin sheego doorashooyinka la filayo in aska dhaco magaalada muqdisho oo welibana madaxweynaha aqalka sare ama madaxweynaha uu sareeyba wadanka aan dhahe oo madaxiisa aad iyo aad u yar oo la dooro doono wadanka la rabo in isku hogaamiyo dariiqa mustaqiimka ummadda islaamka ee ka siisay jid cad iyo jid madow lamada jidka cad oo toosan in asraba dadka isku hogaamiyo waxaa la yiri malaaga inaa muufad uu ku tuwa ku macdahay laakiin dadka ma oga inay lafka soo bixiyso aniga maanta baan idin la hadlay waxaan taageersanahay ninka lagu magacaabo run ahaantii horta waxa waa taageera intii sheegin waa inaa ka fiirsataa qofka aad u xulinaysid mustaqbalkaaga iyo noloshaada dambe iyo future-kaaga in is hogaamiyo waxaa la rabaa qof aad ka fiirsatay in is laakiin qof aad dhex batash haddii adiga future-kaaga ama mustaqbalkaaga u dhiibato waxaa laga yaabaa in iska halee marka waxaa loo dhiibtaa qof oo run ahaantii aad is leedahay qofkan qof bulshada wax u qaban kara waay nin kalena ma aha ninka aan ii sheegayo waxa waaye master jibriil ibraahim cabdulle oo run ahaantii isku soo sharaxay in as madaxweyne yahay ninka waxaa run ahaantii aniga aan ku taageersanahay horta dhalinyarana waa yahay sidiisaba dhalinyara wax loo sheegana boqolkiiba boqol haddii konton ay diidaan konton inay ka ogolaadaana dhici karto waayo odayga boqol shay haddii u sheegtid boqolka shayba ma kaa ogolaanayo qofka odayga markii la doorto laakiin qofka dhalinyarada ee waxaas ogyahay xaaladaha dhalinyarada ee ku sugan yahay haddana ninkaas jibriil ibraahim cabdulle waxa waaye nin wadanka dhibaatadii ka jirtay ee indhihiisa shanta u ahaayeen wax kastana og haddii doorashadaas ku guuleysto waxaas ballan qaaday walaalayaal ama saaxiibayaal ama asxaabta Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed waxaas ballan qaaday in ciidanka la nooleenayo nafaqadooda iyo dufuntooda lagu soo celinayo kabsar caleen iyo hilib eri la siinayo ay miirsanayaan midkooda iyo maankooda u cishmayaan ciidanka hadda ma ka fikiro maxasahay qoyskiisa iyo naagtiisa iyo ilmihiisa ma ka fikiro laakiin markaas ilmahana waxay helayaan asiiri habartana waxay helaysaa askarigana wala xasiila markii taas meesha aan dhigna aw shacab badda ka maqanna waa la helaa asiri cirka maqanna waa la helaa oo laga haysto waxa kaloo la helaa asiri jibriil ibraahim cabdulle haddii aniga madaxtinimada ilaaha laga helaa oo la helo waxaas sheegay inaa horta baahi laga baxaayo cagabarar dambe la arkaynin balaq la ursanaynin maqaar la jiidaynin gambirna la xagxagahaynin ad sheegay oo wax kasta isku dadaalay in dadka si siman ay waxyaabaha loogu talagalay u gaaraan walaalahayga runtii war badan ham bulsha la yiri waxa la rabaa shaqo iyo waxtar iyo dadaal la iska rabaa buffalo soja inta farasta America beesha caalamka dhammaan waxaan u sheegaynaa markaan Soomaaliya aqliya yeelato wax badan waa la gaadgaaday nin wax u tareenin oo kaba weyn waa la keen laakiin markaa aqliya yeelatay Soomaaliya waxay rabtaa ama shacabka Soomaaliya in maslaxadooda qofkii ka taliyaayo ay madax ka dhigtaan waxaan u mahadcelinaa run ahaantii madaxweynaha hadda jooga xasan sheekh maxamuud intii soo daadihiisayaan leeyahay aada ugu mahadsantahay waxyaabaha asqabti run ahaantii waxyaaba la soo koobi karma laakiin hadda isla xilka doorashada madaxweyne ilaa 40576 ka koobana ku tartamooso ninkii ku guuleysahay ma la sheegi karo mugdi oo gacan loo dhiibti waaye wixii kaaga soo bixi doon ilaah og laakiin saas ay tahay waxaan ka codsanayaa jibriil ibraahim cabdulle haddii lacala aad ku guuleysato waxyaabaha hadda xasan sheekh aska tegi doono in aad dhammaystirkiisana lagaa sugaay wabilaahi tawfiiq aadaan u mahadsantihiin wabiyaashuuni waraabe